waxaanu dadaal xoogan ku bixinayay sidii lafta gareen iyo saaxiibadiisa duleedka baydhabo ku sugan uu kala furfuri lahaa. waxa uu ku guuleystay in mid ka mid ah mas-uuliyiinkii lafta gareen la jiray ka midka ahaa saskiisa uu markaa ku qanciyo inuu soo tago oo uu baydhabo kusoo laabto aadan madoobena wada shaqeyn la bilaabo. marka weli waxaad moodaa in aadan madoobe uu howlahaas ku mashquulsan yahay, laakiin lafta gareen dhankiisa dadaal xoogan ayuu wadaa oo uu ku doonayo inuu kaga adkaado aadan madoobe qorshayaashiisana uu ku fashiliyo. kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal meel kasta aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeena xulashada wararka qodobada aan idinku haynana waxaa ugu waaweyn in sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe oo la soo baxay qorshe halis ah oo uu xididada ugu siibayo ciidamada cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ee ku sugan duleedka magaalada baydhabo. qorshahaasi muxuu yahay? barnaamijkeena xulashada ayaa ku dul istaagi doonaa oo si weyn idinku faahfaahin doonaa haddii eebba idmo. sidoo kale saraakiishii ka goosatay ciidamada cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ee u galay dhinaca aadan madoobe oo loo dhiibayo xilal muhiim ah oo ka qayb galaya maamulka cusub ee sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe. raggaasi xagee ayaa loo wadaa? xilalka loo dhiibayo noocee ayay noqon doonaan? barnaamijka ayaan ku falaqayn doonaa haddii eebba idmo. sidoo kale ciidamo cusub oo ku biiray ciidanka cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen iyo weliba lafta gareen qudhiisa oo wada qorshe cusub oo kula wareegayo deegaano cusub oo ka mid ah deegaanada koonfur galbeed sida degmada bardaale iyo deegaano kale ayaan halkan idinku soo gudbin doonaa haddii eebba idmo. fadlan daawada haddaad ku cusub tahay baraha aan ku leenahay bulshada janalka subscribe noo saar, muuqaalka like gare oo share gare. aan ku bilownay sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe oo ah hogaanka cusub ee koonfur galbeed Soomaaliya ayaa waxa uu degay qorshe halis ah oo xididada ugu siibayo ciidanka cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen. waxaa la sheegayaa aadan madoobe inuu hadda wado qorshe uu ku kala jebinayo ciidamada haray ee taabacsan cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ee jooga duleedka magaalada baydhabo, isagoo oo raba in uu la heshiiyo ragga madaxda ah ama mas-uuliyiinta ah ee sarsare sida wasiirkii hore ee amniga iyo sidoo kale afhayeenka madaxtooyada koonfur galbeed ee dhinaca taabacsan cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ninka lagu magacaabo ugaas xasan iyo rag kale oo waaweyn oo saameyn ku leh gudaha ciidanka cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen si uu u dhameeyo khilaafka muddada soo jiitamayay u dhexeeya isaga iyo lafta gareen. haddaba qorshahaasi muxuu yahay? muxuuse ka bedeli karaa hawsha uu wado cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen? mase u suurageli kartaa sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe? su-aalaha iyo kuwo kale oo badanba waxaanu ku dul istaagi doonaa barnaamijkeena xulashada oon si gaar ah aan ugu eegi doono ugu falanqayn doono haddii eebba idmo. waxaa si toosa khadka telefoonka ugu jira mawlid oo la socday wararkii ugu dambeeyey ee deegaanada koonfur galbeed iyo weliba tallaabooyinka iyo qorshayaasha uu dejiyey aadan madoobe iyo weliba cidda uu sida gaarka ah diiradda u saarayo uu doonayo wadahadallo inuu la furo xilal sarena uu ka siiyo maamulkiisa cusub ee hadda uun tallaabo qaadka ah ama tallaabo baradka ah. mawlid soo dhawow, maxaan ka ognahay qorshaha uu wado sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe? muxuuse ka bedeli karaa halganka dib u xoreynta koonfur galbeed Soomaaliya khaasatan ciidanka cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen uu ku hayo duleedka magaalada baydhabo? waxaa ka taagnayd xiisado aad u culus oo kala duwan kuwaasoo u dhexeeyey xubka lafta gareen iyo aadan madoobe. dhinacyada mid kasta oo ka mid ah waxa uu dadaal xoogan ku bixinayay sidii uu midka kale uga adkaan lahaa siyaasad ahaan iyo ciidan ahaanba. aadan madoobe markii uu arkay inuusan awood ciidan kaga adkaan karin lafta gareen waxaa maalmihii ugu dambeeyey uu qaaday tallaabooyin kale oo aan ahayn markaasi tallaabooyin military. waxaanu dadaal xoogan ku bixinayay sidii lafta gareen iyo saaxiibadiisa duleedka baydhabo ku sugan uu kala furfuri lahaa. waxa uu ku guuleystay in mid ka mid ah mas-uuliyiinkii lafta gareen la jiray ka midka ahaa saskiisa uu markaa ku qanciyo inuu soo tago oo uu baydhabo kusoo laabto aadan madoobena wada shaqeyn la bilaabo. marka weli waxaad moodaa in aadan madoobe uu howlahaas ku mashquulsan yahay, laakiin lafta gareen dhankiisa dadaal xoogan ayuu wadaa oo uu ku doonayo inuu kaga adkaado aadan madoobe qorshayaashiisana uu ku fashiliyo. marka howlahaasaa socda. aadan madoobe waxa uu hadda wada hadallo la bilaabay xubnaha markaasi ka tirsan wasiirada garabka lafta gareen, xildhibaano oo garabka lafta gareen ka mid ah, saraakiil ciidan iyo askar iyo guddoomiyaal degmo uu ka mid yahay guddoomiyihii hore degmada baydhabo cabdullaahi cali watiin iyo guddoomiyihii degmada waajid iyo sidoo kale guddoomiyihii degmada buurxakaba. uu doonayay in dhammaantood uu ku qanciyo in kabka lafta gareen ay kasoo baxaan, aadan madoobena markaas dhankiisa ay soo aadaan. marka waxaad moodaa in labada dhinac ay isku maqan yihiin. waa gartay wadadan cusub
hadda uu bilaabay ma u eg tahay mid uu wax uga qaban karo ama uu wax kaga bedeli karo qorshaha ay wataan cabdicasiis xasan maxamed laftagareen iyo weliba xulufadiisa dul fadhiya baydhabo? axmedow, mar walba oo laftagareen iyo saaxiibadiisa duleedka baydhabo ku sugan waktiga uu ku dheeraado oo joogitaankooda duleedka baydhabo uu noqdo mid dheeraada oo xal fursad u tahay midoobe. laakiin haddii laftagareen saaxiibadiisa ay ku guulaystaan in degmooyin kale oo sida ay qorsheynayeen koonfur galbeed ay gacanta ku dhigaan, waxay ka dhigan tahay in aan si fudud looga adkaan doonin. marka waxaad moodaa mar walba oo waktiga uu dheeraado cidda caqabada ay ku noqonayso in laftagareen ay tahay way adag tahay in duleedka baydhabo lagu sugnaado, way adag tahay in duleedka baydhabo ka joogo iyada oo xaalad dhaqaale iyo sidoo kale duruufo kale oo adagba ay suuragal tahay inay wajahaan. waa gartay ciidankii iyo saraakiishii hadda soo xarootay oo dhinaca laftagareen ka soo xarootay, iyaga ilaa iyo hadda maxaa tusaale u noqon karaa oo dhinaca maamulkiisa uu kaga daray? wax tallaabo ah oo uu qaaday miyaa jira? saraakiishii soo xarootay iyo mas-uuliyiintii laftagareen kasoo goostay intooda badan sida xogaha aynu ku helayno ninkii lagu magacaabayay kalay gudoomiyihii degmada awdiinle waxay xoguhu sheegayaan in loo magacaabi rabo gudoomiyaha degmada baydhabo ahna duqa magaalada. marka waxaa ka mid ah laftagareen saaxiibadiisa waxyaabaha lagu qalqaalinayo in xilal iyo markaasi loo ballan qaadayo in mas-uuliyado loo dhiibayo oo xilal lagu abaalmarinayo. marka haddii kalay uu helo mas-uuliyadii xilkii loo ballan qaaday laga dhiga duqa baydhabo, waxay ka dhigan tahay in shakhsiyaad kalena ay kusoo dhiiradaan haddii ballanqaad loo sameeyo. marka laftagareen mar walba saa hore u sheegay waktiga uu dheeraado oo joogitaanka duleedka baydhabo uu ku dheeraado, magaalo kale koonfur galbeed ay ku adkaatay inuu gacanta ku dhigo, baydhabo uu la wareegi waayo, waxay ka dhigan tahay in saaxiibadiisa qaar ka mid ah uu lumiyo. waxaan ognahay laftagareen dhaqaale ahaan hadda ma jirto cid uu si toosa ugu tiirsan yahay, ma jirto meel cashuur uu ka qaado oo uu ka arrimiyo. waxa keliya hadda markaas laftagareen iyo saaxiibadiisa doorka ku hayo waa dhaqaalihii horey ay u shaqaysteen iyo waxyaabihii markaasi hantidii koonfur galbeed hore usii qaateen. marka waa adkaan doontaa in doorka ay kusii jiraan haddii aysan iskaatiijiyad kale la imaanin, haddii aysan helin taageero kale oo dibadda ah oo dhanka dhaqaalaha iyo saadkaba. marka waxaad moodaa in xaaladda koonfur galbeed dhinaca aadan madoobe suuragal tahay inay u dhammaato oo isagu uu kaga adkaado laftagareen, waana suuragal in laftagareen markaas uu ku adkaado. kale waxaa nagu maqaalo ah in rag badan hadda laga shakisan yahay oo iyaga kala shaki uu soo kala dhex galay oo hadda laga yaabo inay hadda saraakiil badani sida hadalhaynta suuqa ku jirtaa ay rabaan inay maaragtay sidii ninkii hore oo kale ay aadan madoobe u galaan. maxaan ka ognahay iyada xogta? waa suuragal mar walba laftagareen waxa uu lumin karaa saaxiibo muhiim ah. shakhsiyaadka ay ku adag tahay in laftagareen uu lumiyo oo garabkiisa ay ka baxaan waxaa ugu horeeya waa wasiirka amniga iyo sidoo kale afhayeenkiisa. laakiin inta kale ee saaxiibadiisa ah laftagareen waxa ay kula joogaan waa un dana siyaasadeed oo ay kasoo waayeen aadan madoobe. haddii marka waxyaabihii ay ka tabanayeen aadan madoobe ay ka helaan oo tabashooyinkii ay qabeen aadan madoobe uu u ballan qaaday inuu xal ka gaarayo ka xaalmarinayo ma sii joogayaan. marka cid kasta oo laftagareen gulufkiisa dib kaga soo biirtay waa cid ay tabasho keentay oo aadan madoobe wax ka tabanaysa. marka haddii aadan madoobe tabashadaasi uu xal u helo waxay ka dhigan tahay in dib ay ugu laaban doonaan magaalada baydhabo islamarkaana ay ka bixi doonaan garabka laftagareen. marka waxaad moodaa laftagareen cid kasta oo hadda garabkiisa ku sugan ama garabkiisa joogta in ay xilli kasta suuragal tahay in garabkiisa ay banayso. haddii marka laftagareen ciidankiisa ay noqdaan tusbax afka laga furay oo sidii ciidamada kale u soo xaroonayaan hadda ay iyagu u xaroodaan, arrintaasi halgankii uu ku jiray maaragtay ma baabi'in kartaa mise waxaa is leedahay waa uu sii socon karaa in muddo ah? mar walba oo laftagareen uu lumiyo mas-uuliyiinta hadda la joogto qaar ka mid ah waxay hoos u dhac ku noqonaysaa uun halgankiisa iyo gulubka askarta meesha joogta. haddii maalin walba ay arkaan mas-uuliyiin goosanaysa, mas-uuliyiin tagaysa, waxay ka dhigan tahay mar walba oo mas-uul ka goosta garabka laftagareen
in uu luminayo tiro askar ah mar walba oo tiro askar ah uu lumiyo nafuud uu ka tago inta soo hartay waxay noqonayaan kuwo niyad jaba kuwo moraal ahaan ay ku adkaato inay duurka kusii jiraan marka halganka lafta gareen waxa keliya uu ku jiri karo waa in saaxiibadiisa uu sii haystaa mar kastoo saaxiibadiisa uu qayb ka mid a lumiyo ama inta ugu badan uu lumiyo waa mar kasta oo uu meesha kasii baxayo ama uu sii dhimanayo rajadii laga qabay halganka lafta gareen inuu dib ugu laabto hogaanka koonfur galbeed marka waxay ku xiran tahay in lafta gareen uu guul gaaro in lafta gareen uu baydhabo iyo koonfur galbeed dib ugu laabto in saaxiibadiisa uu sii haysto sida muuqatana maalin walba qayb ayaa lafta gareen ka goosanaysa walow isaga laftirkiisaba shakhsiyaad badan ay u imaanayaan oo shakhsiyaad badan ay aadan midoobe iyo dowladda federaalka kasoo goosanayaan oo ugu dambeeyey guddoomiyihii degmada buurhakaba iyo saraakiil ciidan iyo odayaal dhaqan iyo askar aad u fara badan waxay ka dhigan tahay in mar walba lafta gareen laga goosto isagana loo soo goosanayo waxa ugu dambeeyey kalay markii uu goostay lafta gareen dhankiisa waxaa soo aaday guddoomiyihii degmada buurhakaba saraakiil ciidan iyo askar aad u fara badan marka labada dhinac waxaad moodaa in ciyaar game caadi ah ay ciyaarayaan oo kala wareeg ah haddii lafta gareen laga goosto aadan midoobe laga soo goosanaya marka taas mar walba waxay meesha ku tahay inay tahay jiritaanka halganka lafta gareen laakiin haddii sida muuqato lafta gareen isbedel uu sameyn waayo oo deegaanihii iyo degmooyin kale uu gacanta ku dhihi waayo dhaqaale uu waayo waxay ka dhigan tahay in halgankiisa uu meesha ka baxayo saaxiibadiisana uu lumin doono waayahay ninka layaa lafta gareen miyayna furnayn oo uuna samayn karin inuu hadda aadan madoobe la heshiiyo wadahadal ay qaataan xal la isla raadiyo ciidankan uu isagoo qudhiisa xareeyo waxaa weeyaan wax walba waa laga samraayo raggu waa la heshiiya waa la diriraayo maanta uu la shaqeeyo oo uu maaragtay ay ka odayeeyo oo waxaan ka dhaco miyayna isaga waddada u furnaynoo inay nin dhan oo mas-uul soo noqday oo madaxweyne 7 sano soo caawu ahaa hadda inuu jabhadeeyo wax macnoo weyn usoo kordhin mayso marka maxaa u diidan inuu inay aadan wada hadlaan lafta gareen waxa ay taayaan maahan aadan madoobe marka si loo fiiriyo lafta gareen xasan ay sayeen sheekh maxamuud xasan sheekh maxamuud bay siyaasad ahaan isguudanayeen xasan baa dagaal uu la galay xasan baa ka adkaaday aadan madoobe waa nin meesha la kicsaday haddii xasan maanta uu meesha ka baxa oo isbedel uu ka dhaco filla soomaaliya hoggaan cusub uu imaado waxay ka dhigan tahay in lafta gareen uu rajo badan ka qabo maadaama mudaxileedkii xasan uu dhammaaday in uu dib u soo laaban karo haddii uu xasan meesha ka baxo marka suuragal maaha ilaa xukuumad cusub ay ka imaado oo madaxweyne cusub oo soomaaliya la doorto in lafta gareen miiska wadahadalka uu la fariisto aadan madoobe marka rajada ugu weyn uu qabo waa in haddii xasan meesha uu ka baxo aadan iyo isaga ay markaasi loolami karaan dowladda cusub ee timaadana ay dhex u noqon doonto labadoodaba laakiin hadda uusan jirin sabab uu aadan madoobe la heshiiyey maadaama uusan haysan cid dhexdhexaad ah haddaba daawade dad badan waxay isweydiinayaan qorshayaashan sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe ma u hirgeli karaan suuragal ma tahay inuu soo afjaro ciidanka cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ee weliba muddooyinka badan hadda ku mashquulsanaa arrimaha koonfur galbeed ee duulaanka iyo dagaalka ku gaalaabaxay mase ka hortegi karaa halista ka soo socota ciidankaas wixii aragtidaada nagula wadaag qaybta faallada iyo commentiga barnaamijka la gare oo sheer gare barnaamijkeennii xulashaduna intaas ayuu caawa ku egi